si xal waara loogu helo tabashooyinka walaalaheen Soomaaliland waa dad walaalaheena aan jecelnahay oo aynan kala maarmin waxaan ku bixinaynaa dadaal dheeri ah midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed si aan uga baxno dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ee ku jirto waxaan u diyaarnahay inaan si waafi ah uga garaawno tabashooyinkooda walaalaheena reer Soomaaliland mudane gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin kalfadhigan wuxuu ku soo beegmay iyadoo uu meel fiican marayo xiriirka wada shaqeyneed ee u dhaxeeya dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada taasoo qayb weyn ka qaadan doonta xaqiijinta himilooyinka ummadda Soomaaliyeed waxaana naga go'an inaan sii xoojino wada shaqeyntaas hadduu eeba yiraahdo waxaan bogaadinayaa doorashooyinkii ka qabsoomay dawlad goboleedyada koonfur galbeed iyo Puntland waxaana ku kalsoonahay in doorashooyinka Jubbaland iyo Galmudug ay iyaguna xilligii loo asteeyay ay ku qabsan doonaan doorashooyinkooda hadduu eeba yiraahdo siyaasadeenna arrimaha dibadda waxaa saldhig u ah in Soomaaliya ay xiriir wanaagsan la yeelato wadamada caalamka iyadoo iskaashigeedu ku qotomo ilaalinta waxa ugu horeeya iyo waxa ku xiga iyo waxa saddexaad ay tahay danaha qaranka Soomaaliyeed aysan waxna ka hooseen waxna ka dambaynin waxaan shacabka Soomaaliyeed aan u xaqiijinayaa inaan had iyo jeer u taagannahay ilaalinta midnimada madax banaanideenna iyo ilaalinteena xuduudaheena dhulka badda iyo cirka xiriirkaan la leenahay wadamada deriska ah waa mid ku dhisan iskaashi oo ku salaysan is-ixtiraam iyo wax wada qabsi siman ee dhinacyada amniga hadday tahay dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo bulshada Soomaaliya waxay buddiga u ahayd ama u tahay dadaalada lagu xoojinayo iskaashiga dhaqaale ee dalalka Geeska Afrika ujeedooyinka iskaashigaas wadamada Geeska Afrika waa in wadamada Geeska Afrika ay horumar waara ka gaaraan dhinacyada dhaqaalaha nabadgelyada siyaasadda iyo bulshada mudane gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin waxaan ugu dambeyntii gudoonka golaha shacabka mar kale aan ka codsanayaa inay meel mariyaan hindisa sharciyeedyada kala duwan ee hor yaalla waxaana halkaan aan ku shaacinayaa in kalfadhigii shanaad ee golaha shacabka uu noo furan yahay waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh